halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasto adduunka aad ku nooshiin. Waxaan rabaa maanta inaan waxyaabo badan oo wacyigelin inaan idinla wadaago. ciwaankayga waxa waaye talooyinka shacabka Soomaaliyeed waaye iyo hadafka dhalinyarada Soomaaliyeed aqoon-yahanada ah u diyaar ah inay dalkooda wax ka dhisaan wacyigelintana noocooda qaybta aga aadisan oo shaqada aan ku shaqeyn. dad badan ayaa waxaa isdhahayaan miidiyaha lacag ayaa lagu bixiyaa, wiilkan dhalinyaro waa u gadan yahay lacag ayaa la siiyay dad badan ay dhahayaan, laakiin wiligay kama qaadan hal shilin dowlad Soomaaliland. laakiin waa dalkayga iyo dadkayga. marka waxaan rabaa wax yar inaan wacyigelinta aan qaarkay aan dhinacayga aan ka qaato. unugu waxaa caqabad nagu hayo wax la yiraahdo maamul goboleed la dhaho. waa 5 maamul goboleed waaye iyo 6 maamul goboleed waaye halaa wiliba ka sii maqan. kulligoodna waa isku halo, kulligood waa tuugo oo qaybta loogu talagalay federaalka iyo shaqadeeda ma ka soo baxayaan. hadday ahaato Somaliland iyo hadday ahaato kuwa kaleba maamul goboleedyada kale, waxay baal marayaan sharciga dalkan iyo dadkan. wuxuu leeyahay baarlamaan, wuxuu leeyahay sharci dastuur oo 60 oo jaahis oo dowladiyaadan cadda lagu soo hogaamiyo ummadan lagu soo dhaqowleeyo wadankoon nadiif ah. federaalka ujeedin iyo dastuurka qabiyo qoraalka wuxuu cadow keeno waa cadowga soo jireenka oo Soomaaliya wuxuu abaabulo waay. laakiin maalintii la yagleelay dowladnimo Soomaaliyeed markay dowladaas naga baabaaday, dhalinyaradii yaryar oo goobjoogayd ayaan maalintaas warkooda aanan wax laga soo qaadayn. dad badan oo baarlamaanka ku jiro 10 iyo dhowr sano oo hadda dhex jooga maalintaas waxaan la wadaagay inaanan laga helaynin 10 qofood baarlamaanka la soo dhisi doono Soomaaliya hoggaankeeda inay aad u yar yihiin, balse la rabo in la daba joogo oo meeshaas la daba joogo oo intay dadka adkaarta Soomaalinimada iyo adkaarta danta iyo dalka iyo difaaciisa ku jirto in dad badan loo helayo, balse aynan si sahal ku imaan. xildhibaanadaas waxay sheegeen in maalintaas dad badan ay qireen, qaarkoodna ay iga jeesteen ay biiqursadeen. laakiin dowlad walbo dalkan soo marto duruuf ayay ku soo shaqeysay. maalin maalmaha kamidana hadafkeena uu ka guuleysaa oo lagu difaacayo cirka iyo dhulka iyo badda iyo xuduudada iyo sumcadda Soomaalinimada. waxay mari doontaa meel culus ayay maraysaa, horumar leh wadan wasaaradihiisi iyo wax walbo ay dhisan yihiin. maamul goboleedyada marka inaan waxaan ka wacyigeliyaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed. maamul goboleedyada ciidankiya ka mid yihiin dadkii ma arkin oo volunteeriga ku shaqay jira wiligood ayaa tiin dalkooda iyo kol lacag la siiyay in cadow walba ka difaacaya, la dagaalamay cid walba oo wadankan soo hajuunto. maamul goboleedka maanta wuxuu ku badayaa adigoo ciidan iyo wax walbaba haasto deegaankaaga jooga ayuu ku leeyahay nin kale oo walaalka ah oo wuxuu ku leeyahay dil. iga mid ma aha taasu wuxuu u fahmay qalad. wasaaradaha Soomaaliya iyo Ilaahay waatuu ku roonyahay waa laga dhargaaho waa bad ninka dhalinyaro oo markaas u shaqeeyahay si volunteerial mushaarkiisa wax walbana helay. laakiin in lagu yiraahdo dagaalan oo nin daniista ah oo siyaasi oo asaga bis ku egtahay afartugiyo ku isticmaalayo ku adeegsanin. marka aad tahay ciidan maamul goboleedba sidiisaba inaan agad digo dhalinyarada Soomaaliyeed inaan agad digo. sabab
maamul goboleed waxaa loogu talagalay kaliya inuu kaawayaasha dhaqaalaha uu aad u soo saaro oo dadka danyarta la shaqeeyo oo waxbaro oo iskoolaad xifladda iyo dalaga sida loo beerto oo u waxeeyo iyo dadka danyarta aqoontooda inuu kordhiyo iskuulada iyo wax walba kaawayaasha dhaqaalaha inuu la yimaado xisaab hufan oo markaas oo qaabka uu wax u maamulayo inuu dawladda uu budgetka uu helayo budgetka ka maqan inuu dawladda la socodsiiyo laakiin wuxuu rabaa inay ciyaalkaada iyo adiga inay xabad inta ku haleesho dirbi ka dhigto oona daaweeyo wax kaawayaal dhaqaala oo ku dhisinay jirto inuu meel cad oo kugu dilo raba meel cad kaaga taga waa iga dignin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leenahay intaasoo wasaarada intaasoo dawladda ah oo golo shacab waxaan leenahay golo shacab oo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen oo aqoon-yahankoodii fadhiyo oo jaahis yihiin ay kuwii federaalka ku jireen oo dalkii martabadii sare ama daladii guud oo dalka iyo nidaamka iyo sumcadda difaaciisa waa kuwa federaalka haddii laga hor yimaaday kaawayaasha dhaqaalaha ay ka hor yimaadaan waa maamul goboleedyaashii waa tuugo oo martabay lahayn inay rabaan waad inaad ogaatid dhalinyarada Soomaaliyeed waa iga digniine adkaar mida gacan mida aga hortaga ma aha micnaheedu in maamul goboleedkaas oo dhan la burburiyayo micnaheedu waxa waaye saaq xun ayaa raashinka ku dhex jiray saaqas in laga bixiyaa la rabaa ay sidoodii wax u shaqeeyaan ninkan waa tuug calooshiis u shaqeystaan marka adkaartaas ayaan idinla wadaagayaa waa aragtidayda waxaa laga yaabaa dad badan inay u arkaan si kale waxaad rabtad baro u arki kartaa laakiin waa adkaarto aan maanta aniga qabo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.